labaduba ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada muqdisho. haddii uu hirgalo go'aanka ururku waxay noqonaysaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2006 oo labadaasi goobood dib loo howlgeliyo, waxayna arrintani dhabarjab ku tahay dowladda kumeel gaarka oo dakhliga miisaaniyadeeda ugu badan uu uga soo xaroodo dekada iyo gegida caalamiga ee muqdisho. haddaba waxaan arrintaasi ka waraystay macalin xaashi maxamed faarax oo ah sarkaalka u qaabilsan ururka xisbul islaam gobolka banaadir, waxaanan ugu horreyn weydiiyey go'aanka ururkooda. waa mahadsantahay. arrintaas waa jirtaa. shacabkii muslimiinta ahaa ee Soomaaliyeed waxay go'aansadeen kadib markay arkeen dhibaato fara badan iyo cashuuraad fara badan markay ogaadeen ayay waxay codsadeen in iyo maamulka al-xisbul islaam waxay go'aansadeen in shacabkaas dhibaatada badan ku jiro in dekadooda iyo laboorradooda loo furo. shacabkii kullina waxa waaye maanta arrintaas munaasabadaas ayaa halkaas ka dhacday. marka furitaan aad iyo aad u qiimo badan ayaa ka dhacay. arrintaas waa caddaynayna waana dhacday. marka de magaalada sheekh waxa ku yaala magaalada airport weyn oo la isticmaalay iyo dekadii weynada magaalada muqdisho labaduba shaqaynayso. maxay kaga duwanaan doonaan labadaasi? wax badan ayay kaga gedisanaan doonaan. airportkaas iyo dekadaas waa og tahay cadowgii islaamka ayaa haysta. islaamka ayaa dhibaato badan loogu geystaa. waa og tahay dekadii markii markab Uganda uu kusoo xirto dadka dekada iska lahaa ee Soomaaliyeed ee muslimiinta dhammaan waa laga raacdayaa. xamaaliga iyo kulli iyo dadkii hantida lahaa waa laga raacdayaa. danahooda markay ka dhamaystaan ayay kadib ayaa dadkii waxaa lidhahaa maalmo kadib aa lidhahaa taqdiina qabsada. marka midan waa ka gedisan tahay oo dekada islaamiyiin gacanta ay ku hayaan oo shacabka Soomaaliyeed oo hayo waaye iyo laboorkaas. marka insha Allah hadii Ilaahay iraadadna lagu gumayso doono cashuurta faraha badan iyo cashuurtan saayid dadka loogu qaadan lagu qaadi doono. marka yaa isticmaalayo qorshihiinu yahay in dekadana isticmaalaan iyo airportkan? dekadaas sideeda waxaa iskale laboorka shacabka Soomaaliyeed ayaa iskale. dhulkay ku taal dhul muslim waaye, dhul Soomaaliyeed waaye. shacabkii marka hore furtay ayaa haddana isticmaali doono. cid kastoo badeeca la soo degaysa ayaa isticmaali doonta. waa tahay. waxaad tiri macalin xaashi in dekadan iyo airportka magaalada muqdisho ay isticmaalaan sida hadalka u dhigtay cadowga ilaahay oo tiri canshuur baa dadka xoog loo saara. iyada qudheeda miyaanay dadku isweydiin karin idinku qudhiinina halkan damacsantiin inaad lacaga ka ururisaan oo aan la ogaan karin lacagahaasi waxaad ku isticmaalaysaan? dekadan iyo tan mid maahan. cabdullaahi ina dekadaasna waagi hore islaamiyiintaa fureen, Soomaalida ayaa furatay, kadibna waa laga qabsaday. marka insha Allah dadkana waa lagu dhibaa, haddana laguma dhibi doono hadduu Ilaahay yiraaho. marka arrintaas waa taas waxa waaye shaki kuma jiro. marka shacabkii iska lahaay ayaa furahaya. marka waa shacabkii ayaa furtay maaha waxa anaga afurayna kaliya maahan. marka anaga insha Allah amnigaas ayaa sugi doonaa. marka shacabkii ayaana furtay. waa hagaag. sidaan la socono dekadaha macmalkee ku yaala iyo airportada macmalkee magaalada muqdisho hareeraheeda ku yaala waxaa iskale dad shakhsiyaada. marka sababaha in dad shakhsiyaada dekada ay leeyihiin iyo airport ay leeyihiin inaad dib u furtaan soo taasi dadku uma qaadan karaan in aad dib u soo noolaynaysaan kala qaybsanaantii magaalada muqdisho oo arrintii hore airportada badan magaalada la isticmaalay dib ugu celinaysaan? waad mahadsan tahay. dad shakhsiyaad male. marka arrintaas waa kaa khaldan tahay. marka insha Allah soo saxo insha Allah hadii Ilaahay arrin ka khaldan waa arrintaas ama si kale wax lagu sheegay. waa tahay. laakiin arrintaas meesha ka keenta anaga garama karno. inkastoo de idinku xisbigiina aad leedihiin anaga furnay, laakiin markii horeba dekada ceel macaanba waxa maamuli jiray shirkado private oo shakhsiyaad ay leeyihiin ganacsato gaar ah. marka ma kuwii baa dib u furay? adeerow cid kasta oo ganacsato ah oo wax la imaanaysa oo Soomaali ah ama aan Soomaali ahayn wax waa la soo dega kartaa. si nabad ayayna kula soo degi doontaa, mana lagu qashqashaadi doono. adiga haddaad doonto wax la soo deg. dekad Soomaaliyeed waaye, dekad muslim waaye, cid kale ma jirto waxa haysa la imaaw. insha Allah mana lagu qashqashaadi doono. waa tahay. dhinaca markaan eegno waa tii ururka IGAD iyo wadamo kale oo Soomaaliya daneeya dawladana taageer ay sheegeen in cunaqabatayn lagu soo rogo meelaha islaamiyiintu ka taliyaan airportada. marka inaad dekad furtaan iyo airport soo lagama yaabo intaasi ay soo jiidato cunaqabatayntii hore loo saaray kooxahan islaamiyiinta oo idinku ka mid tihiin? adeer waa mahadsan tahay. adduunyadan waxa waaye Ilaahay gacantiisa ayay ku jirtaa. xirkan iyo dhulkan Ilaahay gacantiisa ayay ku jirtaa. cid kale cunaqabatay karta ma jirto. annaga hataa ujeedo waxa waaye waagi hore cunaqabateen waa idin saarna yihiin. meesha doonaa tagnaa waxaa doonaa cabnaa. marka cunaqabateen sigaad waxay cunaqabatay karta ma jiraan. marka insha Allah taas waxa waaye waa war iska dhay waaye. marka cunaqabateen cid ilaaha wax qaba kara ma oga. cid kale wax cunaqabatay karta ma jirto. khayr Allah ku sheegay. waa tahay. marka ma ganacsatada goobahaad ka talisaan ka hawlgala ma kuwaasaad ku qasbi doontaan inay isticmaalaan dekadan iyo airportka?
waxa waaye VOA waxa laga sheegaya marka ka muuqdo waa idaacad Mareykan u hadasho oo kala waaye marka af Soomaaliya ku hadashiin marka reer la hadashiin qasabkaas macnaha ma dadka meelaha ku qasabna macnaha ma ogtahay cid qasabna bal sheeg marka taas sax ma war sax maahan marka insha Allah adiga wallahi ka dhigay in Soomaaliya dadtay ama cid doonta hawada badeec la imaayay adeer la imaaw marka waa tahay haddaan hadalka si kale u dhigo macallin xaashi ganacsatadu haddii ay ku dhiiran waayaan oo matalan ay ka baqaan ama culays dhinaca dawladda uga yimaada ama baqdin dhinaca islaamiyiinta ay ka baqanayaan oo ay isticmaali waayaan eerboorradan maxaad samayn doontaan markaa maya dadka waa iska xur dad xur ah waaye marka insha Allah waxa waaye insha Allah aad iyo aadan ugu naxariisayna anaga ummadana ma dhibno mana dhibi doono marka insha Allah cid kasta in nabadan halkaas ay kala degaan marka dhibaatana loo mageysan doono insha Allah marka ujeedadu waxay noqonaysaa inaad tartan la gashaan dekada weyn iyo airportka Muqdisho oo ganacsatadii loo kala tartamo idinkuna dhinaciina aad culays hadayna noqon aad u soo bandhigtaan ganacsatada in la isticmaalo oo ay noqoto ganacsatadii inay eegaan wixii danahooda ah ee airportkii u raqiisan ama airportkii u canshuur yar meeshaas waxa waaye adaa aliftay moogi anaga tartan iyo arrimahaas ma gelin insha Allah mana galayno shacabkaas iyo ganacsadaygaas kala dekadooda inay u furan tahay u sheegayna islaamiin xaqooda ay ka xayirnay cid kasta habeenii maalin waxay doonaan kala soo degaan ayaan ugu baaqaynaa waa tahay ururka al-shabaab iyaguna magaalada dhinac bay ka joogaan xiisada dhinaca shabaab iyo xisbul islaamna dadkoo dhan iminka way iska og yihiin iyagu qudooda taladan maxay ka leeyihiin ku saabsan inaad airportkan iyo dekadan dib u furtaan hay adiga waxa waaye la dhaxgelin marka isla laba wiil oo isla dhalato mataana lama dhaxgalo marka daad dhaxgashana waxaan laga hayay saddexeeye marka saddexeeye inaan naqatay marba meesha waa kaaga nastaxiha islaamiintaas insha Allah waxa waaye qaabkii u macaamilaan iyo qaabkii wada nool yihiin iyo qaabkii ay isku walaashadaan iyo qaabkii cadowga isku jiraan ayaga si gaar u taalaa arrintaasina iska dhaaftaa jeclaalaha waa tahay haddii ay noqoto dhinaca dakhliga markii hadday wax ka soo baxaanba oo la isticmaalo ganacsatadu isticmaalaan dakhligaasi ma labadiina aad qaybsan doontaan mise waa uun dhinaciina adeer waxaa gashay bad kale oo aan lagu dirin oo aanan ku ballaminaba gashay marka insha Allah waa taas waxaa jeclaalaha inaad iska dayso kaasina wuxuu ahaa macallin xaashi maxamed faarax oo ururka xisbul islaam u qaabilsan gobolka banaadir oo khadka taleefanka isagoo magaalada Muqdisho goor dhaweydii ugu waramayay